wafdi dambe laaran ay u hogaaminayaan wasiirro ka mid ah wasiirada Puntland oo ka mid ah wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka macdanta iyo biyaha, wasiirka masiibooyinka iyo abaaraha dowladda Puntland iyo waliba guddida abaaraha ee dhawaan u magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland Soomaaliya ayaa maanta soo gaadhay degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag waxayna u kurgalayeen xaaladda abaareed ee dalka say ugu jirto iyo waliba biyadhaankii si u soo gaadhay deegaamada tan waxaana ugu horeystii ka warbixiyey oo guddida iyo wasiirada xog waraysi siiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag jaamiciyoon ayaa ugu horeystii warbixinta u gudbiyey guddida abaaraha iyo wasiirada ee dowladda Puntland ee maanta soo gaadhay degmadan Ceelbo ay lahaay gudoomiye waa naga dhisay waa dhaafaya wax badan oo ku dirsiin guddida waa dhigtay islaamo labada ceel halka hadda ka badan hadii dhulkiisa badan male waa basio waa ay jid waxyaalo kaloo badanina waa jiraan xaalada oo iska jirta waxaan kusoo ururinayaa dowladda inoo timi saddexda wasiir shaqada ay u socdeen waa taa ay noo sheegeen wixii kaloo aynu ku darno waa inaga gudbinayaan shaqadii hadday u socdeen maaha laakiin waa dowladdii iyo madaxweynihii dowladda u tagaaya booliska iyo shaqooyinka kaleetana gobolkeena kaliyaha sheegay insha allah inaa ka sheekaysanayna haddii ala yidhi waa ognahay oo fiixin kaloon iyo kii kaleeto iyo kii laga qaaday kii laga qaaday malambi ka dhisin ma badna intii badnayda soo celiyay anaa idinka warro marka insha allah waxaan oranayaa qayb ka mid ah barnaamijka abaaraha baan rabaa inaan furo mas-uuliyiinta inoo timi waxaa jira dad badan oo soo xarooday oo inay ka dhamaadeen dadkaas wax bays oo loogu talagalay iyo meel ay degaan oo maaragtay qorshe ah ma laha reerba reer buu kusoo uga baxaya arrintu markay sidaa noqotana waxaa imanaya wax badan inay dhexda ka baxaan soomaan aan u baahannahay oo idin faraynaa mas-uuliyiinay in dowladdu ay u samayso dadka soo xeroonaya qorshe inay u samayso qorshahaas annagana aan gobol ahaan iyo deegaan ahaanba lagu shaqeeyo si loo ogaado xaaladdu marka meesha ay marayso xaaladduna haddaa ilaahay raxmad subinta mar walba waa kasii daraysa taa insha allah waa firaan jecla loo wadaago intaasi kadib ayaa wasiiradii soo gaadhay maanta magaalada Ceelbo ayaa iyaguna u xog warramay sida ay markaasi xaaladda Puntland ay uga qayb qaatay xaaladaha abaareed ee 9 gobol ee dowladda Puntland 25 qoys oo raashin ah intaas Sanaag aniga lagu soo dhiibay waxaan xoogaa u ahay biyuhu u dambeeyay maahaynan waxba la siin arrintan waxaa keenay guddoomiyaha reer Ceelbo dowladda hortiisa kama lihi marka qofku shaqeynayo ummadda dhexdeeda ka shaqeynayo qofna waa qof u shaqeynaya si shahiid ah qofna waa qof u shaqeynaya si manfac uu ka helo guddoomiyaha aad baan u mahadcelinaya idina ogaada wuxuu ila tegay meel xalay al-shabaab ka guurto raashin ka radatay macnaha inaan qofku cabsan xataa buuraha salkooda meesha la yidhaahdo dalqooxe wuxuu ku yaallaa af urur dabcaa ka heli halkaasuu la galay annana waa ku khasban inaan tagno xaalad adag baa ka jirtay intaan maraynay Sanaag meel igama harin markii uu biyaha qaybiyo dhulka uu biyaha siinaya dhulkaan u dhashay waa garanay waa jiida u haraadka badan oo ilaa Carbale inta ka sukaysa ilaa Burmale dabala xagan inta laga gaaro iyo jiidan xaggeena ka xigta iyo jiidii hore to aan markaa ka nimo hadda ilaa roob ku shubay oo buur ahayd wuxuu ugu yidhi Ceelbo biyana waa leedahay waana islaantaa weli isagaa meesha joogo hortaan raalli ka ahaada waxaana daafan guddoomiye isagaa nahagayay allah barakay runtii cadnimo ka arkay guddoomiye soo u shaqeynayay iyo guddida dhahar iyo buraansi uu la shaqeynayeen iyo guddoomiyaha qarro soo ila shaqeeyay haddii dadkooda u shaqeyn lahaayeen dadkuna waxaa nama lahayn dad daacad runtii aan waxba ka xumaa annagana wax khasab ku nahay inay dadku nahagaan dadkooda u shaqeynayaan marka waa mahadsantihiin insha allah guddoomiyaha wax ka codsanaya guddoomiye wixii damabaal ka yimaada Ceelbo kugu hadlaynayo adeegii iyo nabadgelyadii iyo horumarka aysan iyadu wax badan ka qaban
تعرفت كده موقتها هي عم صغيرة لكن مدة معناها صغيرة واحدة أريد أسكت تشيك هذا كده واتسين تاس معناها ضدك واحد كل استان حب لا هذا كوفرت كم بده نمان كان وديت كان جوجان ضد أنت بلي اسكت تشدد ربع هيريد نسكت هذا سمينا أركين أنا اسكت تشيك مر بدولتك حب ليا وقت مركز اسكت تشيك وبعدين هي waxaan rabaa wax yar inaan kaga noqdo arrinta guddigan shaqadiisa annagu waxaan ahay guddigii madaxweynuhu magacaabay 28 xubnood baan ahay waxaan isugu jiray wasiiro culumo ganacsato bulshada rayidka dadaalka intaa waxa loo geliyay waxa abaartan in laga jawaabay ahayd runtiina barnaamijka dhan wuxuu daaranaa isku tashi hadday dawlad tahay hadday shacab tahay in la isku tashado oo keenin miito loo gaaro arrintii markii la qiimeeyay dhaqaalaha loo baahan yahay dhaqaalo lagu qiyaasa markii isku tashiga inuu ka soo xaroodo ilaa 10 milyan buu ahaa dawladdu waxay u waaweyd 1 milyan buu ku deeqay ganacsatada waxay bixiyeen dad badan waxbay ku yabooheen dawladda waa la hadalay dadaal badan ma ahayeen markii fiilin wax yar baa nooga soo xarooday sida wasiir maxamed sheegay qiimeyn 9 gobol oo Puntland lagu sameeyay baa waxa ka timid sida loo kala daran yahay baahida ugu badan ay laba arrimood ahaydahay biyaha iyo cuntada la gaaro iyo xoolaha daawada intii wixii la gaari karo runtii samarka waa laga jawaabay Facebook waa biyaha la bilaabay wajiga waa oo gabadha loo qorshay bal idinku waxaan qiyaastaa marka la yiraahdo kumbooyinood gobolada Puntland aragtida leeyahay loo qeybay gobolka wax yar ka soo gaari kara laakiin waxaan ku fiicnay gobol kasta iyo degmo kasta waxa ay qolada sidii loo kala liito war hebel u geeyay hebel baa naga liito u geeyay runtii taa sharaf weyn oo ahayd tiimaanu ku shaqaynaynaa waxaa la hayo wax dadka oo dhan kafayn kara ma ahan laakiin wixii la helo in sida loo kala cudisha loo qaybsado un bay ahayd waxaa ku xigay raashinkiina waxbaa laga bilaabay wixii la hayay oo meesha hadda waa dhammaadeen laakiin waxay kacdoon kale oo waxna lagu aruurinayo dadkiina aan rabnayna wax sii gaarsiino baa hadda socda maalin kasta abaartu sii dheeraato culeyskuna waa sii dheeraanaya xooluhuna waa sii dhimanayaan dadkii ku noolaana halis bay sii gelayaan annaga go-aanka aan qaadana waxaa xooggeenna iyo dadaalkeenna inaan awoodda saarno dadka iyo miyiga ah hay-adaha dhowr jeer aan u yeernay waxaan ku niri wax alla wixii dhaqaalo iyo resource haysaan dadka miyigaad geynaysaa magaalada 3 bilood u kaadiya miyiga ku wareejiya waayo waxaan ognahay xooluhu inay lafdhabar u yihiin dhaqaalaheena iyo nolosheena in dadka la badbaadiyo keena wax haysta keena liita inuu wax taro ugu dambeyntii waxa ay u dhaqaaqeen dhanka koonfureed ee magaalada Ceelbo waxaana ku sii mareen mid ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada oo deegaankaasi degan oo arigiisii uu ku sheegay 800 oo neef uu hore u ahaa haatanna ay uga hadheen tiraga in gaadhaysa 70 neef oo aan waxba lahayn wixii lagala bixi lahaa iyo wixii ka iibsan lahaa ayuu markaasi guddida ugu xogormay iyo sidii xaaladda abaareed ay u taabatay wuxuuna markaasi uu ka codsaday in gargaar loo soo fidiyo ilaahaya gargaarle waxaa ka nool 70 aan wax lagu bariyaa jirin intaasaa ka gurtaanka jirta marka abaara ilaahay baa keenay ilaahay baa ku leeyahay caawimada iyo kaalmo naguma badna laakiin biyana soo gaaray oo naga soo gaaray xagga Puntland waa jirtaa baahidana ilaahay baan u xukumayay baahidana ka saara baahida usbaan qaba aniga haddan halkaa joogo 70ka 7 qof ayaa haysan jiray marka xaasas caruurtaydu waxa weeye waa 47 intaas waxaan ahay uma hayo sanadkii hore waa noo yimaadeen weli qaar baa nala jooga marka guurkaas ayaa naxariis soo bidaa marka jira xoolaadna waa gabdhaha arigan hadda waxaa sii laayay
شريعة الله ينادوا بك وشفتها خير ما شنو أنت سنة waa markii labaad ee guddida abaaruhu ay soo gaadhaan balse maanta wafditan soo gaadhay degmadana ceelbe gobolkani sanaag ee indhaindhaynaysa xaaladda abaareed ayaa inta ka cuslayd oo waxaa ka mid ahaa wasiirada xanaanada xoolaha iyo weliba wasiirro kale oo ku heliyey taliyaha ciidamada daraawiishta gaashaanla dhexe mustafa siciid toorar iyo weliba guddoomiyihii hore gobolka sanaag ayaa dowladda puntland waxay ka codsadeen degmadan ceelbow ee gobolkani sanaag inay u soo magacaabaan gaar ahaan madaxweynaha dowladda puntland inuu u soo magacaabo degmo markaasi si dhaksala ugu soo magacaabo maadaama ay buuxisay shuruudihii iyo weliba wixii laga rabay ee ka rabtay dowladda puntland ee markaasi ay ku qaadan lahayd magaaladan ceelbow degmo ayaa ay buuxisay wuxuuna ka codsaday taliyuhu in sida ugu dhaqsiyaha badan ee madaxweynuhu uu u soo magacaabo degmo magaaladan ceelbow maadaama ayna degmo ahayn ayna leedahay iskuulaadkii waxbarashada saldhiggii booliiska ee dhowaan la dhisay iyo cusbitaalkii oo isna wakhti dhowaan ahayd la dhisay haatanna dowladda puntland ay cusbitaalka ay gacan ka qaadatay sidaasi daraaddeed ayaa guddoomiyihii hore gobolka sanaag cali xuseen soomaali iyo taliyaha ciidamada daraawiishta ee dowladda puntland ee saldhigdani ayay ka codsadeen inuu si dhaqsiilaa ugu soo magacaabo madaxweynuhu degmo waa axmed